waxaan leeyahay walaalkay maxamed hawshaada allah kula garab galo saad walaalahaga ugu adeegaysa allah kugu adeego waad mahadsan tahay ku soo dhawow aniga oo ka socda UK halka ganacsi ku haysta shirkadan Trans Africa Travel waa shirkadda igu dhiirigelisay inaan halkan imaado oo aan shaqooyin ka samaysto shirkadda Trans Africa waxay bixinaysaa adeegyo kala duwan waxayna xarunteedu tahay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxay bulshada Soomaaliyeed ka caawinaysaa shirkadani adeegyada waxbarashada caafimaadka iibinta guryaha socdaalka dhinaca dalxiiska xiriirka warshadaha dalka Turkiga iyo adeegyo kale oo muhiim ah gudoomiyaha shirkadda Trans Africa Maxamed Cabdi Axmed ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsoomay shirkaddan waxaana dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah macaamiisha shirkaddan ay Turkiga ku soo dhaweysay iyo mas'uuliyiin ay wada shaqeeyeen sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara Daahir Ahmed Dhoore ayaa bogaadiyay hal abuurka Maxamed iyo dadaalka uu muujiyay shirkaddan qaabkan u asaasnay iyo qaabkay ay shirkaddu timiday anigoo maamulaha shirkadda Trans Africa Trading Service and Medical Tourism anoo Maxamed Cabdi Axmed waqtigii aan shirkaddan asaasnay waxay ahayd 2019 bishii 10aad ayay ahayd muddo shaqaysay shirkaddani waxaan qabanay waxa jirta waxyaalo badan xafiisku ka soo shaqeeyay muddo shaqeeyay xafiisku waxyaalo badan ayuu qabtay waxa kamid ah sida guryaha iibka ah oo walaalaha dalka degan dalkan Turkiga gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed oo guryo badan aanu iibinay oo dibadejin u sameynay walaalaha qaarkood iyo guro kirooyin aan dejinay sida awgeed waxaan sameynay oo kala qaybaha kala duwan ee sida isbitaalada oo caafimaadka ka saacidnay isbitaalo badan waxay la leenahay waxaan kale ka saacidnay qaybta waxbarashada oo admission ka soo saarnay ardayda dalka dibadiisa jooga waxaan kale shirkaddu oo ka saacidnay qaybta muxuu ahaa deganaanshaha wadanka iqaamada si loo yaqaanaba ama kaasi joorka ama iqaamada deganaanshaha wadanka sida kale waxay qabato kala waxaan kale shirkaddu qabatay in travel insurance ko kala si travel insurance ko kala dalka dibadda jooga ee deganaya dalbanaya fiisaasha dalbanaya oo travel insurance ka oo la socdo flight booking iyo hotel booking ba la socdo waxay kaloo shirkaddu ka saaciday transport shirkaddu leedahay dadka imaanaya dalka Turkiga ee gaar ahaan airport ka soo degaya ee haysa kharashaad Turkidii is afgarnay tagaasidii adresskii oonan maantuli wareejinayo in ka saacidnay meesha ay rabaan ama hotel haday rabaan ama hadii ay rabaan muxuu apartment ama adresskayna siyan sida ugu dhow aan ugu geyno waxay kaloo shirkaddu ka saaciday qaybta waxaan ka maqnayn intaas waa adeega shirkaddu ay bixiso guud waxa kaloo meesha aan kan maqnayn ay bixiso qaybta ganacsiga imika kan waxaan la joogaa nimadii warshadaha lahaa oo qaar kamid ah warshada marmarka ninkii lahaa iyo qaybta transportka iyo warshadaha sida xadiidka sida daqiiqda sida baastada sida salida sunflowerta intaas ay shirkaddu ayay qabatay waxaan halkan aan ugu bashaareynaa horta maanta aan u qabanay xalfadan waa si wanaagsan in aan gaar ahaan dalka Turkiga xafiis korto wuxuu ku yaala waddanka Turkiga gaar ahaan special Ankara ku yaala faras magaalada Ankara amba loo yaqaan Kizilay ka soo horjeedka moolka aydan Istanbul University tabaqaabu saaran yahay waxaan ugu bashaareynaa walaalaha qaaliga inuu adeegiisa xafiiska uu qabanayay uu sidiisa u qabanaya shaqaalaha fircoon ay joogaan walaalkan Maxamed waxa uu u furay office-ka markuu furayay yani waxyaabo badan oo Soomaalida uu ka arkay baahi badan oo cayladiisa iyo family-giisa kaga timi taasoo ay sababtay inuu walaalihiisa Soomaalida u adeego sida waxaan ku sheegay ciqaamadaha kale inuu sameeyo afkiisi Soomaaliga gabadh ku qabanaysa ay joogto sida guryaha inuu gado isagoo ka qancinaya dadka afkii Soomaaliga aha waxa kale uu sameeyaa inuu cargo qayb ah oo ilaa Soomaaliya wadan kasta ku tagi karta waxa kale uu sameeyaa maxaan ku sheegay inuu caafimaadka kale inuu ku leeyahay oo dhakhtar badan la xiriiro sida walaalaheena Soomaalida marnaba aanay u helin wax qabada oo mara waxaan leeyahay walaalkay Maxamed hawshaada Allah kula garab galo saad walaalahaga ugu adeegaysa Allah kugu adeego waad mahadsan tahay ku soo dhawow wax khayr qaba ayaan ku rajaynaynaa insha Allah horumar fiican ayaan leeyahay marka ugu horeysa waxaan u baarikayaa walaalkay Maxamed Cabdi Axmed martiqaadka oo lagu martiqaaday xafladan ku saabsan iclaaminta Trans African Travel and Cargo oo hore u shaqeysay
haddana uu ugu maaragtay uu customerskii uu rabo inuu mar labaad u sheego inay maaragtay shaqadii uu qabanayo. waxaan halka ka sheegayaa aniga oo ka socda UK basekaygu UK yahay halka ganacsi ku haysta shirkadan Trans Africa Travel waa shirkadda igu dhiirigelisay inaan halkan imaado oo aan shaqooyin ka samaysto. waa ninka igu soo dhaweeyay ama shirkadda igu soo dhaweysay inaan maaragtay iqaamadii wadanka aan la soo baxay deganaanshihii isaga ayaa qayb lixaad ka qaatay. walaalkay waan u baarigayaa barakallahu laka. waxa weeyaan dadka macaamiisha ee jooga wadankii Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya, Kenya iyo Yurub dhammaan iyo adduunyada oo dhanba waxaan leeyahay shirkadan dadkii ugu horeeyay ee ay maaragtay service-kan u qabatay baan kamid ahay. waan idin soo dhaweynaynaa walaalkeena waan u baarigayaa. marka hore magacaygu waa Khadar Cabdi Ismaaciil waxaan ka yimid Ethiopia bayskayguna amba fadhigayguna waa Hargeysa. runtii Maxamed Axmed Cabdi maamulaha Trans Africa and Real Estate Transport and Cargo waxaan isna qaanay muddo badan kulay waxaan ahaa inaan background-ka amba ciyaalimadkii aan isku arday ahaan jirnay oo madrasa Xaaji Cali la oran jiray darro ku taalaan oo wada dhigan jirnay. Maxamed waxaan ugu yimid dhawaan amba bil ka hor xakan Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara xafiiskiisa oo xafiiska Maxamed uu ku bixiyay sarfeesyada aan soo sheegnay ee kala duwan haday tahay sarfeesyada caafimaadka health tourismka oo Maxamed aad uga shaqeeyo runtii oo dad badan oo Soomaaliya kala duwan oo dunida dacaladeeda haday tahay Europe haday tahay America haday tahay Africa Ethiopia Soomaaliya Kenya inta halkan ku soo dhaweey runtii wax badan oo kala qabta haday tahay xagga luqadda haday tahay xagga maaragtay dhaqaalaha oo kale uu ka caawiyay. laana qofku wuxuu baahan markuu dalku cusub yahay runtii cid taageerta amba qacan qabata oo meesha uu baahnaa iyo baahidii wada haysay meesha ka ilaa cid uu gudi lahayd amba uu kala kulmi lahaa inuu helo. marka Maxamed runtii sectorkaas aad buu uga shaqeeyay. sidoo kale Maxamed wuxuu aad uga shaqeeyay qaybta real estate-ka oo walaalaha Soomaaliyeed ee ku kala nool dunida dacalaheeda jecelnay deegaanka Turkiga amba ay ku noolaadaan mustaqbalka uga iibi guryo badan. runtii muddo yar markaad eegtay shirkadu iyadoo jirtay haddana markaad eegtay hawlaha ay qabatay haday tahay real estate-ka haday tahay xagga soo dhaweynta dadka iyo shaqaynta dadka walaalaha Soomaaliyeed iyo cid kasta oo macaamilo shirkadda la soo xiriira runtii waxaan oran karaa Maxamed wax la taaban karo ayuu dhinacyadaas ka qabtay. Sayın Muhammed Abdi Ahmet Bey ile beraber ortak mermer dekorasyon emlak işlerle ilgili beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ramazan walaalkeen oo la shaqeeya Maxamed muddo hal sano ah wuxuu halkan ka cadeeyay inuu marka hore yahay saddex warshadood saaxiibkiisa inuu yahay saaxiibka macnaha qofkii lahaa inuu yahay uu ka shaqeeyo Africa oo dhan meelo badan uu marmarkiisu tago laakiin uu ku mahad celinay Maxamed sidoo uu helay una fududaatay adeegyadii uu u qabanayay Soomaalida maadaama uu yahay Maxamed qof Soomaaliya oo office furtay sidii adeega Soomaalidu uu u sii kordho ayuu magaranaysaa ka hadlay walaalkeeni Turkiga ku soo hadlay. أنا ku hadlaya magacayga Daahir Axmed Dhoore iyo magaca rugta ganacsiga ee magaalada Ankara. waxa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan daafurkeeda lagu macsuumay shirkadda Trans Africa Trading Service and Medical Tourism uu manager ka yahay walaalkeen Maxamed Cabdi Axmed. taa sharaf weyn bay ii tahay. qaybta labaad marka hore waxa mahad iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dul qaaday ama naga hakiyay cudurkii xumaa adduunyada halakeeyay iyo dawladda Turkiga waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ula macaamilooshay cudurka. maanta aynu leenahay waxaanu ka gaarnay guulo fiican marka taa labadaba Ilaahay iyo dawladda Turkiga waan uga mahad celinayaa. ta kale ka soo qaybgalka shirkadda tani runtii anoo matalaya rugta ganacsigu waxay ii tahay sharaf inaan markasta arkaa dhalinyaro yar oo u hogaansantay in ay bulshada Soomaaliyeed ama Djibouti ha ahaado ama Soomaaliya ha ahaado noocu doona ha ahaado laakiin magaceeni iyo diinteeni dhaqankeena wata in ay joogaan ama soo baxan dhalinyaro u istaagay inay ummadda Soomaaliyeed ka caawiyaan dhowr arrimood sida hadda walaalkeen Maxamed uu sheegayo ama shirkadiisa ay ku dhaqaaqday. waxaan u maleynayaa wax ay u baahan tahay ummad in aad looga saacido haddii kamid ahaa caafimaadkii daraasadii
guryihii marka maadaama wadankan uu noqday wadankeeni labaad ee Turkiga ah ee aan aad ugu soo hiranay waa inaan u helnaa dhalinyaro sida Maxamed oo kale ah. Maxamed waa nin ku dayasho leh, waa nin wanaagsan, waxayna ii tahay sharaf inaan garabkiisa istaago maanta oo aan ku bogaadiyo wax uu qabtay inay yihiin wax wanaagsan. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay soo dhawaada anigoo ah Cusmaan Xasan Cusmaan xubinna ka ah shirkadda Trans Africa Trading Service and Medical Tourism qaybteeda caafimaadka u qaabilsan adeegyada shacabka in looga turjumo waxyaabaha ay ugu baahan yihiin qaybahaas caafimaadka oo dhan haddii ay ahaan lahayd in balan loo qabto iyo in wadamada ay joogaan adeegooda caafimaad lagala socdo oo dhakhtarka halkan jooga lagala xiriiro oo lagu xiro. sidoo kale shirkadda waxay xiriir weyn la leedahay isbitaalo badan oo Turkiga ku yaala. ugu dambeyntiina gudoomiyaha shirkadda Trans Africa Maxamed Cabdi Axmed waxa uu munaasabad cashi sharaf ah u sameeyay qaar ka mid ah macaamiisha shirkaddan iyo mas'uuliyiin kale oo ay wada shaqeeyaan. wuxuu xafiiska shirkadda Trans Africa ku yaala kasoo horjeedka moolka Kislay gaar ahaan dabaqa ay ku taalo Istanbul Aydin University. kusoo dhawaada gacmo furan.